waxaan ugu talagalnay inay warshadaani ay kaydiso 800 oo tan kalluun ah waxaan noo qorshaysan maalinkii inaan qaadano hadduu Ilaahay yiraahdo 20 ilaa 50 tan oo kalluun ah inaan maalinkii process gareyno dadka ka shaqeyn doona meeshan waxay gaari doonaan adigu estimate-ka sameeyay ilaa 5,000 qof oo Soomaali ah baa laga yaabaa wajiga koowaad inay u sameeyso shaqo abuur fiican Garacad oo ah magaalo xeebeed la taariikhan oo ku saabsan kalluumaysiga ayaa isu diyaarinaysa inay noqoto xarunta ugu weyn ee farsamaynta kalluunka ee Soomaaliya dhismaha shirkadda kalluunka Garacad oo laga hirgelinayo deegaanka ayaa maraya heer gabagaba iyadoo dhawaan la keenayo qalab casri ah oo lagu farsameeyo kalluunka si warshada loo hawlgeliyo kolba waxay meel soo marto maanta waxay maraysaa waa gabagabadii feeska koowaad oo maanta alxamdulillah waxaan taaganahay hangarkii aan inta ku taameyn inaan dhisno baa maanta noo dhamaaday gudihiisii baanu taaganahay waxaa noo dhiman oo kaliya waa cagdigiisii hadduu Ilaahay yiraahdo xogaaga yarkoo bambanaan oo bulkeetiga lagu xiri doono iyo albaabadaas oo lagu xiri doono hadduu Ilaahay yiraahdo waxa kaliya hadda noogu xigaa waxay tahay wana cagdigi sameynaa oo jeegan ku sameyn la banaanku noo yaala shamitada waa noo xariisan tahay waxa kale oo ayadana diyaarsan 3 apartment oo hangar ka baxsan oo ugu talagalnay dadka professionalka aan keensanayno oo ka shaqeynaya kamarigan inay deegaan u noqoto baan hadda diyaarina oo diyaarsan waxa inuu ku xigo doonaan insha Allah taala waxay noqonayaan waa inaan keenaa warshadii wax kale ku sii xigi doonaan waa ka jinkiina kalluunka qabanaa warshada waxaa loo diyaariyay hanaan cusub oo suurtagelinaya in kalluun la gaarsiiyo gobolada dalka Soomaaliya dalalka dariska ah iyo suuqyada caalamka laga bilaabo Asia ilaa Amerika kalluunkan kow suuqiisa ku horta wadankeena waxay jirta kalluun yari maanta galka yaani magaalahan igu sukaysa magaalo weyn iyo garow labadaba ismay yihiin halka kiilo kalluunka ah waa $6 buu ka joogaa ama $7 marka suuqa ugu weyn oo rabno horta inaan kalluunka u iibgeeno waa wadankeena number 1 kadibna waxaan noogu xigo internationalka suuqa internationalka ah dawladaha dariska ah Ethiopia u baahan Kenya u baahan Tanzania oo badlaha u baahan wadamada aan badal lahayn Afrika oo dhan baa u baahan waxa u baahan oo ka soo dalbanayo Khaliij al-Arab oo dhan baa looga baahan yahay Asia Europe iyo America caalamka oo dhan baa u dhufeynaa kalluun hadduu Ilaahay yiraahdo inta hadda dalab ka haysano iyo inta naga soo dalban doontaba waa ka iibin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo qorshahaygu wuxuu yahay midka koowaad wadanka midka labaad insha Allah taala waa international waa warshadii ugu horeysay noocan ah oo laga hirgelinayo Soomaaliya burburkii kadib iyadoo si weyn uga duwan warshadaha kalluunka gasacadeeye ee horey uga jiray dalka warshadan sida hadda wariyanaari weydiiyay warshadaani dadku inta badan weyna weydiiyay markay dadku maqlaan warshad kalluun inta badan waxa ku soo dhacaysa warshada gasaca samayso mataqaana gasacyada samayso baa ku soo dhacay sida qaalibka ah laakiin anagu gasac ma sameynayno oo kalluunkan ma gasacadeynayno laakiin kalluunka ayaan kaydinayna sidiisa isagoo hool ah iyo isagoo villad ah oo lafii laga saaray madax laga saaray madax laga jiray caloosha laga saaray labaduba waa kaydinayna waxaan qaadanaynaa oo kale argoostada waxaan qaadanaynaa ani item oo badda laga soo saaro asku badkaan qaadanaynaa waxaan qaadanaynaa argoostada qaadanaynaa waxaan qaadanaynaa kalluunka noocyadiisa kala duwan oo dhan wiilka badda galay oo soo shaqaystay wax alla wuxuu keeno baan ka qaadanaynaa waana kaydinaynaa marka warshadaani shaqada ay qabanaysa waxay tahay waa kaydin wax alla wixii loo keeno ee iib geeriso dadka ay ka gadanayso warshadu waxay shaqo abuur u samayn doontaa kumanaan qof taasoo noqonaysa fursad weyn oo wax ka bedeli karta nolosha bulshada gaar ahaan dhalinyarada shaqo abuur fiican bay noqonaysaa dhalinyarada sababtoo shaqo abuur aad u fiican bay noqonaysaa waxa uu noqonaysaa qorshaha iyaga wuxuu yahayba wax ugu weyn loo sameeyayba inaan shaqo abuur sameeyno maxaa yeelay wadankeena waa aragtay laba sidood shaqo abuur bay u tahay kow wax shaqo abuur u tahay dadka physical dadka shaqeynaya shaqo abuur bay u tahay dadka ayaga kalluunkooda keensanaya shaqo abuur iyo maaliyadna way u tahay waxay kaloo shaqo abuur fiican u tahay dadka shareska ku darsaday ama ku darsan doona shaqo abuur fiican bay u noqonaysaa maxaa yeelay maanta kambaniyada Soomaaliya ku yaalo dhan waa kambaniyo import ah waxbay soo dhoofiyaan ama dhismaha ahaato ama raashin ha ahaato even xataa kalluunka waa loo soo dhoofiyaa Taiwan iyo Thailand buu nooga yimaadaa in laakiin aan dhoofino annagu hanti aan leenahay costigeedana aad u hooseeyo profitkeeda ama faa'iidadeedana ay aad u sareyso fursadaha ugu badan oo laga heli karo ka mid tahay sababtoo hadda sheerka waa furnay dadku waa u furnay inay ka soo qayb galaan waxaana ugu yar lacagta ugu yar lagu darsan karaan waa $2,000 albaabkaas halkaas dambe ka soo bilaabanaysa oo noqonaysa meesha kalluunka lagu miisaamo lagu dhaqo lagu soo qalo ilaa ay ka imaato meeshaan hadda aan taaganahay oo laga dhisi doono meeshii mataqaanaa kalluunka lagu package gareyn lahaa laguna kaydin lahaa
qaybtaana waa qaybta administrationka xafiiska weey dabaqan kore insha Allah taala waxa mataqaana admiki ba ku shaqeynayo iyo dabaqan hooseba waxa ku yaala hoolkii mataqaana shirarka ku yaala meeshan ayada ah oo shirarka lagu qabanayay ba ku mataqaana hada shaqo ka socota sida hadda muuqato waa hoolkii laga dhisayaa meeshan shirarka lagu qabanayo shaqaalaha ay kala qaadanayaan waajibaadka ama wixii gasti ah oo noo yimaada ama dadka mataqaana doonayo meeshan ganacsi ka rabo laabkii way qaybta mataqaana waa storage wax lagu mataqaana hagaajinay qaybtaana waa mataqaana local roomyadii mataqaana oo loogu talagalay shaqaalaha laba baaqo muhiim waa u diraya mid waxay tahay anaga la firkeeyo fursad baa naga bannaan qofkii doonayo inuu wax lagu darsado waa soo dhaweynayna fursadaas waa bannaanta insha Allah taala wali ma aysan xirmin laga yaabaa mar dhow inay xiranto waa suurtagal laakiin wali lama xiro laguma dhawaaqin in la joojiyo laakiin waxa iska sii furnaan doona ma ahan taa waa baaq labaad maxuu jeedinaya ganacsatada guud ee Soomaaliya war hantida aad ka saaraysaan waddanka ama intaad soo shaqaystaan waddan kale aad gelinaysaan waxaa ka faa'iido badan oo ka ammaan badan waddanka gudihiisa inaad maal gashataan sababtoo ah maanta hantida la geliyey East Africa ama South Africa la geliyey ama mataqaana Central Africa aan gelin ama West Africa la geliyey haddii maanta la gelin lahaa Soomaaliya waddanka automatically nabad bas ka noqon lahaa shaqo abuur fiicanna waa ka dhalan lahaa marka ganacsatada fursadaas oo soo jeedaan waxaan leeyahay war meeshaana faa'iido fiican taala haddaan beeraha yaga iyo baddeena aanu aaminno waxaan helaynaa faa'iidada aan raadinayno mid toban mar ka badan kana macaan baa helaynaa lacagtana waddankeena ku laabanaysaa guryaheena iyo xaafadaheena laga dareemayaa tahriibtaa naga yaraanayso waxaa naga yaraanaysa burcadbadeedda waxaa naga yaraanaysa tuugada waxaa yaraanaya dhaca waxaasoo dhan baa yaraanayo shaqo abuur fiican baa waddankeena u samayn karnaa annaga ayaa dhisi karno waddankeenna oo ka dhigi karno waddan jiro maxay waddan qani ahana dad walba qani ka haday macdan tahay haday bad tahay haday beer tahay marka baaqasan mataqaan labada baaq baan jeedin lahaa oo muhiimka ah warshada kalluunka garaacad waxay kor u qaadaysaa dhaqaalaha shaqo abuurka iyo sumcadda Soomaaliya ee suuqyada caalamka Sicinaadaara garaacad